Assalaamu calaykum. Shanta xeer ee dahabka. Shanta xeer ee dahabku waxa ay ku timaaday sheeko taasoo dhacday waqtigii Baabilyoonka ama Baabiliya. Runtii waa sheeko xikmad iyo garaadbadni laga faa'iidayo. Sheekadani waxa ay ku qoran tahay buugga ninkii Baabili ugu hantida badnaa, kaasoo uu turjumay Dr. Jaamac Sahal. Maanta sheegi mayno shanta xeer ee hantida, balse sheekada ayaynu ka sheekayn doonaa. Barnaamijka kan xigana waxaynu ku soo qaadan doonaa shanta xeer ee hantida. Inta aynu sheekadan ku guda jirno, waxa aad maqli doontaa magacyo ay ka mid yihiin Kalabaab, oo ah ninka sheekada uga sheekaynaya shaqaalihiisa, Noomaasir, oo ah wiilka ay sheekadu ku dhacday, iyo Arkad oo ah Noomaasir aabihii. Haddaba haynu bilowna sheekada. Sheekadu waxa ay ku bilaabmaysaa su'aal, taasoo uu Kalabaab weydiinayo shaqaalihiisa. Waxa aanay odhanaysaa, boorso culus oo dahab ka buuxo iyo dhagax qoraaleed murti ka buuxdo. Haddii lagu kala dooransiiyo midkee ayaa aad dooran lahayd? Dahabka ayaa ay 27 ninba ku qayliyeen. Odaygii Kalabaab waxa uu og yahay ayaa uu la dhoolla caddeeyey. Markaas ayaa uu yidhi, dhegaysta waryaa. Cida ay ayda duuraleyda ay samaynayaan dhegaysta. Habeenkaasoo dhan ayaa ay gaajo la cabaadayaan. Haddana haddii aad quudiso maxaa ay samaynayaan? Dabcan dagaal iyo dil dhexdooda ah. Dagaalkaas iyo dilkaas ayaa ay iska wadayaan, iyaga oo aan marnaba isweydiinayn berri iyo gaajada iman doonta. Dadkuna waa sidaas oo kale. Dahab iyo murti kala dooransii, maxaa ay samayn doonaan? Murtida ayaa ay ka tegayaan, kadibna dahabkuna waa uu ka dhammaadaa. Subaxa dambe ayaa ay iyaguna sida aydaas oo kala qalaadaan, sababta oo ah dahabkii ayaa ka dhammaaday. Dahabku waxa uu u kaydsamaa dadka xeerarkiisa yaqaana oo raaca. Maadaama aad si wanaagsan iigu adeegayseen intii aan wada socdaalaynay, maadaama aad geelayga si fiican iigu ilaalisaan, maadaama aad si cabasho la'aana aad ila soo marteen kulaylkii lamadegaanka, maadaama aad si geesinimo leh uga dhiciseen xoolaha tuugadiina soo weerartay, caawa waxaan idinka sheekayn doonaa shanta xeer ee ay hantidu ama dahabku u leeyahay. Waa sheeko aydaan weligiin maqal. Dhegaysta oo dhugmo u yeesha hadalka aan idiin sheegayo. Haddii aad si fiican u dhegaysataan oo aad barataan, waxaa hubaala inaad hanti iyo dahab labadaba aad yeelan doontaan. Mid ka mid a shaqaalihii ayaa hadlay oo yidhi, Kalabaabow, sheekooyin badan ayaad nooga sheekaysay, ee waxa aan doonaynaa inaad noo sheegtid murtina hoggaamin karta markii aan adeegga ku dhammayno oo kala tagno kadib. Waxa aan idinka sheekeeyey socdaalladaydii aan ku tegay dhulal fogfog iyo kuwa qalaadba, balse caawa waxaan idinka sheekaynayaa murtidii hantiilihii Arkad. Wax badan ayaa aan maqalnay ninkaas. Dhammaantoodna waxa ay qirteen inuu ahaa ninkii Baabili ugu hantida badnaa weligeedba. Waxa uu ahaa nin aad u hanti badan. Taasna waxa keentay waxa uu aqoon u lahaa hababka lagu yeesho hantida. Cid u dhigantana weligeed lama arkin. Caawa waxa aan idinka sheekaynayaa murtidiisii, oo uu iga sheekeeyey wiilkiisii Noomaasir, oo aan ku kulannay magaalada Neenaafa aniga oo wiil yar ah. Aniga iyo mudanahayga ayaa Noomaasir guri-weynihiisa ugu tagnay. Waxa aanan u geynay koox darmooyin ah ama roogag ah. Mid ka mid a ayaa uu aad u eegay, ilaa uu kala baxay midii uu isagu jeclaystay. Aad ayaa uu uga helay darmooyinkii. Kadibna waxa uu nagu dirqiyay inaan la joogno habeenkaas oo uu na martigeliyo. Cabitaanno iyo cuntooyin aanan weligay cunin ayaa aan habeenkaas cabbay ama cunay. Intaas kadib ayaa uu nooga sheekeeyey murtidii aabbihiis Arkad, waana tan sidii uu nooga sheekeeyey. Waxa dhaqan Baabile ka jira ahaa in ilmaha dadka hantiilaha leh ay dhalaan ay waalidkood la noolaadaan iyaga oo filaya inay hantidaas ay dhaxli doonaan. Arkad ma uusan fulinin dhaqankaas. Sidaas darteed, markii uu Noomaasir uu koray, ayaa uu u yeeray oo uu ku yidhi, wiilkaygiiyow,
aniga ayaa rabi lahaa inaad hantidayda aad iga dhaxashid. Haddaba waxaan kaa doonayaa inaad dhul kala aadid oo aad ii muujisid inaad awood u leedahay inaad hanti iyo sharafba aniga la'aantay aad iskaa u samaysan kartid. Aniga ayaa kuu bilaabaya. Waxa aan ku siinayaa 2 waxyaabood oo aanan anigu helin markii aan sabool adiga ku leeg ahaa. Ugu horrayn waxa aan ku siinayaa boorsadan dahabka ah. Haddii aad si quman u adeegsatidna, saldhig fiican ayaa ay u noqon hanti aad yeelatid aayahaaga dambe. Tan labaad, waxa aan ku siinayaa dhagax qoraaleedkan ay ku qoran yihiin 5 xeer ee dahabka ama hantidu. Haddii aad si fiican u fahantid, waa aad ka soo baxaysaa hawsha, waana aad guulaysan. Maanta maalinta 10 gu laga joogo ayaa aan kuu oggolahay inaad gurigayga ku soo laabatid oo aan aragno waxa aad qabsatay. Haddii aad guulaysatid, hantidayda ayaa aan madax kaaga dhigayaa. Haddii kalese, wadaadada ayaa aan ku wareejin doonaa si ay dhowrto ama sadaqa igu bixiyaan, guri-diimeedyana igu dhisaan. Intaas kadib ayaa Noomaasir qaatay dahabkii iyo dhagax qoraaleedyadii, waana uu dhaqaajiyey. 10 sano kadib ayaa Noomaasir sidii ballantu ahayd ku soo laabtay gurigii aabbihiis. Martiqaad soo dhoweyn ah ayaa loo diyaariyey soo noqoshadiisii, waxaana ka soo qayb galay saaxiibo iyo sokeeye badan. Markii si fiican loo cunteeyey kadib, ayaa aabbihii iyo hooyadii koreen 2 kursi oo dhaadheer. Noomaasirna hortooda ayaa uu istaagay si uu waxqabadkii u soo bandhigo sidii ballantu ahayd. Waa xilli fiid ah, iftiin yar ayaa uu leeyahay qolweynaha lagu jiraa. Addoomo ayaa babisooyin caleemo timireed laga sameeyey hadba dhinac dadka ugu babinaya. Noomaasir xaaskiisa, 2diisa wiil, saaxiibo, iyo dad kale oo qaraabada ah, dhammaan waa la wada fadhiyaa, waxaana la wada dhegaysanayaa xogta waxqabadka Noomaasir. Noomaasir ayaa hadalkii bilaabay. Aabbahayow, waxa aan ku soo hor jilba joogsaday 10 sano ka hor markii aan qaangaaray. Waxaanad igu amartay inaan guriga ka tago oo aan wax tabcado, halkii aan ka ahaan lahaa dhaxal suge burburiye hantida marka uu dhaxlo kadib. Dahabkaagii iyo murtidaadii ayaad si deeqsinimo leh igu deeqday. Arrinta dahabka waxaan qirayaa inaan ku khasaaray, sida bakayla uga fakado ciddii qabata. Sidaas oo kale ayaa dahabkaasi farahayga uga baxay. Aabbihii ayaa yaro dhoolla caddeeyey. Sii wad wiilkaygiiyow, sheekadaada dhammaanteed ayaa aan xiisaynayaaye. Maadaama ay ahayd magaalo kobcaysay, waxa aan go'aansaday inaan Neenaafa aado si fursad halkaas uga bannaan aan u helo. Dad socdaala ayaa aan ku darsamay. Waxa aanan ku yeeshay dhowr saaxiib, 2 nin oo aad u sheeko badan, haystana 2 faras oo dabaysha ka dheereeya, ayaa aan isbarannay. Intii aan sii soconnay ayaa ay ii sheegeen in Neenaafa uu deggan yahay nin hantiile ah, kaasoo haysta faras uu rumaysan yahay in wax ka dheerayn karaa uusan jirin. Waxa ay ii sheegeen inay khamaartamid la samaynayaan ninkaas, iyaga oo adeegsanaya faraskooda. Waxa ay ii sheegeen in faraskoodu wax badan ka dheerayn karayo faraska ninkaas hantiilaha ah. Waxa ay ii soo bandhigeen inaan aniguna lacag ku darsado khamaartankaas. Waanan u bogay qorshihii, waanan ku darsaday lacagtii. Si aad u daran ayaa looga dheereeyey faraskii aan wadanay, anigana dahab badan ayaa igaga khasaaray. Noomaasir aabbihiis ayaa ku yara qoslay. Gadaal ayaanan ka ogaaday in hawsha dhammi ay dhagar ahayd, ayna ahaayeen kuwa sidaas mar kasta u raadiya dadka socdaalka ah, sidaasna ku khiyaama. Khayaanada ayaa ahayd inay heshiis la ahaayeen ninka Neenaafa deggan, sidaas oo kalena ay qayb ku leeyihiin lacagta dadka ay soo siraan. Khayaanadaas ayaa ii noqotay casharkii ugu horreeyey. Isla waayahaasna cashar labaad ayaa aan bartay oo weliba ka qadhaadh midkii hore. Waxaa dhacday in isla socdaalkii hore aan isku barannay nin dhalinyaro ah oo aan aad u saaxiibnay. Sidayda oo kale ayaa waxaa dhalay nin hantiile ah. Waxa aanu u socday magaalada Neenaafa si uu wax uga qabsado. Isla waayahaasaan magaalada tagnay ayaa waxa uu soo helay qorshe, kaasoo ah in nin tukaanle uu dhintay, tukaankaasna lacag cidla qaadasho ah lagu iibinayo. Waxa uu ii sheegay inuu doonayo inay wadaag ku noqdaan tukaankaas, balse uu u baahan yahay in ugu horrayn uu ku laabto Baabiliya
si uu lacag uga soo qaato. Sidaas darteedna aniga dahabkayga lagu iibiyo dukaanka, isaguna uu gadaal iga siin doono qaybtiisa. Mar kastaba waa uu dib dhigaa aadista Baabilaa. Waqti kadibna waxaa ii soo baxday inuusan ganacsiga ku fiicnayn iyo inuu yahay dadka aan lacagta ka fiirsan ee iska lumiya. Ugu dambayntiina waa aan iska eriyey, balse waagiiba ganacsigaygii waa uu ka sii daray ilaa ay isku soo hareen alaabo aan gedmi karin. Sidoo kalena waxaa naga dhammaatay lacagtii aan alaabo cusub ku soo iibsan lahayn. Wixii soo haray ayaa nin Yuhuudiya qiimo liita uga iibiyey. Sidaasna waxaa ku burburay bakhaarkii. Intaas waxaa ii xigtay maalmo ka sii xanuun badnaa. Shaqo ayaan raadiyey, balse waa aan waayey, iyadoo ay keentay inaanan ganacsiga iyo iibinta waxba ka aqoon. Fardihii ayaa aan iska iibiyey, addoonkii aan lahaana waan iibiyey. Ugu dambayntiina dharkaygii ayaa aan iib ku bilaabay si aan cunto iyo jiif uga helo. Balse maalin walba arrintaydu waa ay ka sii dartay. Balse maalimahaasoo dhan waxa aan xasuusnaa kalsoonidii aad igu qabtay. Waxaad ii dirtay dhul fog si aan u noqdo qof wax qabsan karaya. Taasaana go'aankaygu ahaa inaan gaaro. Markaas ayaa aan ka fikiray dhagax qoraaleedyadii aad i siisay ee ay ku qornaayeen xeerarka dahabku. Markaas ayaa aan si dhugmale u akhriyey murtida aad igu qortay. Waxa aan xaqiiqsaday in haddii aan markii ugu horreysay aan akhrin lahaa qoraalkaas, in aanan dahabkaygu uga lumeen. Xeerarkii oo dhan ayaa aan laabta gashaday si marka soo socotee ayaanku isoo maro aan u tix raaco murtidaas gaamurtay ee aanan u raacin waayo aragnimadayda da'da yar. Si idinkana dadkiina halkan caawa fadhiya aad uga faa'iidaysataan, waxaan idiin akhrinayaa murtidii uu aabbahay iigu qoray dhagax qoraaleedkan aan maryaha ku duuduubay. Waana qoraalkii uu aabbahay i siiyey 10 gu ka hor.